habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada caawiya caalamka iyo cabdiraxmaan bidhaan wararkana waxa ugu waaweyn madaxweynaha Faransiiska ee dib loo doortay ayaa wacad ku maray inuu mideynayo dadkiisa kadib markii uu guul cad kaga guuleystay haweeneydii ka soo horjeeday Marine Le Pen waxaan ku bilaabaynaa warkeena magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Emmanuel Macron ayaa la doortay mar labaad waxaan u ballan qaaday inuu mideyn doono dadka Faransiiska isla markaasina uu noqon doono madaxweynaha dadka oo dhan. Hadalkan ayuu jeediyay kadib markii loo doortay madaxweynaha dalkaasi. Guul weyn ayuu soo hooyay 58% ayuu helay codkii la qaaday. Waa tahay haddaba si aynu wax badan uga ogaano doorashadan ka dhacday dalka Faransiiska gaar ahaan saameynta ku yeelan karto dadka soo galootiga ee muslimiinta oo doorashada si aad ogeedeen aad looga doodo aad looga hadlay. khadka magaalada Paris waxaa ku jirta Khadija Maxamed Jimcaale oo ah wariyad degan dalka Faransiiska. Khadija soo dhawow madaxweynihii Faransiisku uu hadlay markii guuleystay waxa uu yiri waxaan dadka ayaan mideynayaa wadanka Faransiiska kala qaybsanaan badan baa jirta gaar ahaan dadkii muslimka iyo soo galootigii sidee bay noqon doontaa midnimadaasi ay u saameyn doontaa dadka muslimka ah kulata bidhaan waa mahadsan tahay waa sidaa sheegtay dalka Faransiiska qaxooti fara badan ayaa ku nool saameyn ayayna ku yeelatay doorashada ee dhacday sanadkan 2020 isjiid fara badan iyo loolan ay ku loolamayeen kooxaha isku haysta amba xilka markaas u tartamayay waxa lagu tartamayay waxay ahayd arrimaha caalamka ee ku saabsan Ukraine iyo qaxootiga sidii wadanka looga hor istaagi lahaa marka Marine Le Pen saameyn weyn ayay ku yeelatay ajaanibta wadanka ee joogta in ay joojinayso soo gelitaanka ayna ka hortagayso qaxootiga gaar ahaan dhibaatada ay u aragtay muslimiinta dadka wadanka jooga ee muslimiinta ah in ay khalalaase iyo ay sameynayaan marka inay xuduudaha soo xirto waxyaabahaas oo dhan saameyn ayay ku yeelatay doorashada in ay xilka ku weyso inta badan doorashada 2022 waa sax laakiin si adigu haween muslimka markaad eegto haweenka muslimka aad baa looga hadlay xijaabka ayaan mamnuucayaaba tir Le Pen arrinkaas sidee haweenka muslimka u dareemeen ee Faransiiska jooga waxay u dareemeen dhammaan muslimiinta caalamka ayaa dareemay Faransiiska sidoo kale aad iyo aad sababta ay u dareemeen waxay tahay ayada waxay sheegtay xijaabka in laga joojin doono wadooyinka qaar maxaan ku raad meelaha la isku yimaado jardiinooyinka awal iskuulaadka xijaab lagu matagi jirin marka waxay noqotay guud ahaanba inay joojinayso marka maadaama ay joojinayso waxay meel ka dhac ku tahay guud ahaanba caalamka islaamka gaar ahaan wadanka Faransiiska waxaan kusoo gabagabeynayaa Marine Le Pen waxay sheegtay inay fariin dirtay oo ay fariintiina gaadhay madaxweyne Macron fariintaasi maxaad ka fahantay fariinta ay qortay ee Twitter ku qortay ayadoo hawada u marsiinaysa hadal oo hadallo ay isdhaafsadeen horay markay musharaxiinta ay sharxayaan waxa jirta in ay qoloba ay soo jeedisay go'aankeeda iyo waxyaabaha ay qabanayso projectkooda sidaas daraadeeda madaxweynaha ayaa wuxuu sheegay in uu wax badan u qaban doono dhalinyarta gawaarida electricity ama korontada ku socoto marka ayada waayadan dambe waxay isku soo sharxaysay inay samayso waxyaabaha ecology loo yaqaan ee geyiga marka arintaas ayaa dhalisay in ay u marsiiso inuu asaga yahay nin aan yani waxba ka qaban karin ayadana ay wax ka qaban karto waan kartay aan ka dhex galo Soomaalidu waa sidee Faransiiska imka dad badan reer Djibouti ah joogi jiray Soomaalidu imka deegaan ahaan waa sidee dad kale badan oo qaxoonti ay mid balad bariid dambe waa sidee xaaladooda Soomaalida xaaladooda waxay la mid tahay dhammaan wadamada ajaanibta wadanka ku sugan khaasatan wadamada islaamka maadaama wadan Soomaali muslim aan nahay Soomaalidu waxay u arkaan tartankan inuu yahay tartan lagu kala baxay laakiinse dad badan ayaa waxay aaminsan yihiin Macron qodiisa in uu xadgudub ku yahay muslimiinta wadanka ku nool waxyaabo badan ayay ka tirsanayaan talaalkii ayuu soo celinayaa leeyahay shaqooyinka ayaa laga eegaa marka waxyaabo badan oo fara badan maasantihiin saxaafiyadda Khadija Maxamed Jimcaale ayaa iga soo birtay magaalada Paris oo aan ka wareysanay doorashada Faransiiska aad bay u mahadsantahay mahadsan